kaloo aan intaa ku daraynaa in shirkan oo xisaabtoobay ee Turkiga ka dhacaya ee aynu la hadlayno in Soomaalida aynu la hadlayno in wada hadalka Soomaalida iyo Somaliland may dhicin taariikhdana hore uma dhicin in yani waxa weeyaan group gaari ama xukuumad ha sheegtaan ama cid kale ha sheegtaan inay iska goostaan talada dalka oo iyadoo aanay maxaan ku yiraahdaa xisbiyadii kale ee dalka ka dhisnay officialka ahaa aanay qayb ka ahayn in la iska aftuubo oo la iska goosto dawladdu ma garanaysaa nin xirsi la yidhaayo dee maanta iminka wax walba wadaanoo garan mayno meel lagu doortee intuu taw iska yidhaahdo uu Turkiga Soomaali iskala soo hadlo hala soo hadlee uu ula hadlo macno maamul goboleed uu ula hadlo dee horta waa midaan meesha qaban waa nusqaan weyn bay ku tahay Somaliland oo aad u weyn wuxuu hoos geeyey maxaan ku yiraahdaa oo uu ka dhigay maamul goboleed ka liidata waliba maxaan ku yiraahdaa in Galmudug iyo Puntland iyo Jubbaland ka liidata waayo in halka laga abaaraya ama laga wada hadlaya maaha gooniisutaaga Somaliland lagama abaar qaadayo xukuumadda kulmiye ee waxay wadaan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa in wada hadal hoose iyo in ganacsatadu isu socoto iyo in maxaan ku yiraahdaa hawadeennii lagu wareejiyey maxaan ku yiraahdaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa markii ugu horeysay ku wareejisay in maxaan ku yiraahdaa xukuumadda xamar ay ku wareejisay ayuunbu furfurkeedii hoose oo xirsi kala hadlaya Soomaalida marka waxa weeyaan waa aftur weeye hore uma dhicin waa mid nusqaan ku ah dalka waa waxyaabaha Somaliland maanta in isolated ka dhigay ee keenay inaynu United Nationski iyo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysay aynu heer maamul goboleed la taagnaano taa kulmiya keenay in waqtigii daahir riyaal kaahin way jirtay ragga maanta xitaa kulmiye ku jira sida ina waraacada waxa kamid ah ragii lahaa yaan lala hadlinba maanta kulmiye ku jira oo maanta yani horseedka inaynu maamul goboleed nidaam maamul goboleed aynu kula hadalno qodobka ka soo baxay ee kaliya waa in la wadaaga hawada oo aynu xukuumadda xamar aynu branch uga furro maxaan ku yiraahdaa magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland aynu uga furro taasi waxaan leeyahay mar kale waa nasiib darro nusqaan bay ku tahay wada tashi baynu wada lahayn tan waa loo dhamaan jiray ma garanaysaa beelaha Somaliland wada hadalka way u dhamaan jireen xukuumadii hore haddaynu cid kale la hadlayno waa loo dhamaan jiray ama waa laga wada joogi jiray laakiin xukuumadda Siiraan wax gaar ay qarsanaysaa qurun bay qarsanaysaa baan anigu leeyahay falxumo weyn bay qarsanaysaa accountability iyo dimuqraadiyaddii way ka tagaysaa dimuqraadiyaddii accountability-gu waa qayb weyn ayay ka tahay sharciga waddanka aynu qaadanay systemkaynu haysanaa maaha kii xisbigii hanti wadaagii kacaankii Soomaaliyeed inay yani waxa weeyaan dawladdu ay wax walba iyadu hayso waa mid wada tashiya dimuqraadiyaddu waa in gees walba oo maxaan ku yiraahdaa waddanka laga socdaa laga matala wax anigoon hadalka ku sii dheeraanayn waxaan leeyahay arrintaasi waa falxumo weyn waa inay dawladdu dadka iskentaayo isa soo bandhigtaayo waxyaabahan ay kula hadlayso Soomaaliya ay cadaysaa ujeedadeeda Soomaali weyn ee ay hoosta ku qarsanayso waa in banaanka ay keentaa waxaan leeyahay shirkaasi shir falxum buu ahaa haddaanu nahay xisbiga ucud maxaan ku yiraahdaa Europe iyo Mareykan waxaanu leenahay arrintaasi waa arrin Somaliland u cuntamaysa maaha waxaan ku soo dhaweynayaa Shiina Jaamac Koodbur gudoomiyaha xisbiga ucud ee dalkan Ingiriiska soo dhawow waad mahadsantahay Saciid waxaan yara dul istaagayaa qodobka Saciid imika yara taabtaabta ee ka hadlay Saciid Xariir shirkan ka dhacay Turkigu wuxuu u eegyahay amaba uu ku gabagaboobay sida dee muuqato la wada arko waayo guul darro ayuunbuu ahaa wuxuu ku dhammaaday uu noqon doonaana mustaqbalka sii soo soco waa mashruuc ay weeyaan ayuu eegyahay sii soco ummadda in la xeejiyo kolba dhalanteed aan jirin loo sheego waayo doorkii hore waxa la moodaa inay wax ka soo baxeen laakiin iminka markay aftuubeen gruubkaa yaree dee isbidaya inay iyagu aqoontii Somaliland ay xambaarsan yihiin waa dhallaankii hooyadoo dhalmada baraye waxa ka soo baxay waynu arkayn waxa ka soo baxay ugu muhiimsanaa in la yiraahdo Somaliland hawada
hala qaybsato Soomaaliya oo xafiisa looga dhiso Hargeysa taasoo u eegde inay dowladii Soomaaliya ay xafiis ka samaysanayso Hargeysa inaguna aynu nahay gobol ka mid ah Soomaaliya wax ku jiraba iyo malaadana gaara ayaan anigu oran karaa ayaa ku jira waayo dee nin ka naxaya dalkiisa u turaya muu yeeleen heshiis caynkaasa dana gaar oo shakhsiyana oo dhaqaale ah oo dee nin doonaya malayn xafiiska dhaqaalaha laga ururiyo diyaaradaha inuu isagu urursado ayaa laga yaabaa inay ku jirtay iyo takalan iyada la yaabo siyaasiyiinta iyo dadku hayso socdaan dadka garanay dadku waa shicib way soo soconayaan walba way soo socon jireen laakiin waxay siyaasiyiin isugu socdaan de u malayn maayo inay meesha taalo iyagona qoonsiba imanin marka laba dawladood oo walaalo isbarbar yaalo labaduba aqoonsiin noqdaan waynu soo soconaynaa Itoobiya waynu soo soconaa inta siyaasiyiinteeda waynu soo socdaan marka taasuna guul darro ayay ahayd guuldarrooyinka ugu waaweyn ee dowladdan aynu kala kulannay weeyaan dhammaanayna weliba sii socda haddaynaan iska qaban marka mar labaad odayaashii isxilqaamay ayaan ku boorinayaa inaanay ka caajisin hawsha ay dhammaystiraan bulshada reer Somalilandna siiba dhalinyarada waxaan kula talin lahaa meel kastoo joogaanba hadday dalkooda inuun u turayaan ay mustaqbalka rabaan inay taageeraan wax kasta oo lagu soo celinayo cadaaladii iyo dowlad wanaagii aynu doonaynay aynu u dooranay dowladdan oo la moodo inaanay fahmin ilaa imika oo ay ka ahayd in aqalka madaxtooyada aanu galno aqalka madaxtooyadu maaha meel lagu nasto maaha amaba gurigii beeshinka maaha waa meel shaqo waa guri shaqo ummadda intaa leeg ayaa laga maamulaa markaa nasasho maaha markaa inaynu yeelno wax badan oo imika ka soo yeedhaya dowladdeena maaha inagoo taageersan inagoo aqoonsan inagoo ku taageerayna wax kastoo sax ay qabatay ama qabato haddana dee wixii khalada u dulqaadan mayno markaa aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah